waa dal ku tiirsan dhaqashada xoolaha iyo falashada beeraha qamadiga ah waa bulsho kadib dhacsan xadaaradda qarnigii 20aad mas'aagalida iyo masaskuna waxa ay kamid ahaayeen ugaadha xaadirka ku ahayd Sahara waxa ay ahaayeen bulsho kooda kiish qamadiga haysta oo la mid ahaa hantiile waxa ay ahaayeen bulsho badow ah isla markaana sabool u badan balse rajo fog kale inuu dhulkooda saxaraha u badani uu isku rogo cagaar iyo mid barwaaqo badan wax maamul ahi kama jirin dalka Sacuudiga marka laga reebo boqortooyadii Malik ibn Saud ee la aasaasay sanadkii 1835 balse maamulka qabiiliga ayaa aad u xoog badnaa horaantii bishii January 1932 boqor ibn Saud waxa uu heshiis u la galay shirkado laga lahaa dalka Mareykanka oo hadafkoodu ahaa baadigoobka shidaalka iyo maalgelinta iyo dhisidda ciidankii ibn Saud ee qabiilka Rashid ibn Saud iyo ciidankiisiba iyagoo kaalmo ciidan iyo qalab ka helaya dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska waxa ay la wareegeen goobihii laga sahamiyay shidaalka oo ay gacanta ku hayeen qabiiladii mucaaradka ku ahaa maamulka ibn Saud kadib waxa la bilaabay qorshayaal saami qaybsi ah oo ay wadaagayaan boqortooyada iyo qabiiladii saxaraha kale ku fiirsanaa balse awoodda rasmiga ah ee maamulka iyo ka tala bixinta kaydka ceelasha saliidda waxa ay gaar u ahayd ibn Saud iyo qabiilkiisa Rashid sanadkii 1938 waxa si toos looga miladhaliyay hayaankii baadigoobka shidaalka sanadkaasna waxa uu ahaa mid wax weyn ka bedelay taariikhda dalka Sacuudiga oo hore u ahayd nolol ku tirsan dabaysha qalalan ee saxaraha iyo dabashada mas'aagalida oo isku bedeshay nolol barwaaqo suurana hawsha sahaminta iyo soo saaritaanka shidaalka waxa gacanta ku hayay engineer Major Frank oo ka howlgeli jiray shirkadda caanka ah ee California Mining Engineering 1943 ayay kambaniyadii lahaa qandaraaska shidaalku dhameysteen hawshoodii isla sanadkaasina waxa la hirgeliyay shirkad lagu magacaabo Arab American Oil Company oo hanata maamulka batroolka balse hoosta ku wadata saameynta shisheeyaha sida ka muuqata magaca 1973 Israel waxa ay duulaan ku soo qaaday dalka Sacuudiga iyadoo lahayd hadafkeeda qabsashada dhulka Carabeed iyo keedka shidaalka dalalka Masar, Iraq iyo Suuriya Mareykanka iyo UK ayaa si toos ah uga soo horjeestay duulaankaasi kala bixiyay jawaab adag dalka Sacuudiga waxa uu ka mid yahay wadamada ugu shidaalka badan iyo wadamada ugu saliidda badan adduunka